آلية ومعمقة وكان حجرنا هنا بسوق ويو سودان سعيد كبره ودوريه كوا كودي كسرنا ده هو ما دام نشوف إبراهيم وعاء دوريه كوا كودي كسرنا السلام عليكم أحب سيدة الدنيا تظهرون على المكان الصحيح مكان يدور المرة وطن ويلي حسن من عشرين يا الولايات هي من وين بقى إسرائيل كمان تشكل المحل أكل صغير قريب وحصلنا يا أكل واحدة أكل الرجل تي أنا أحكم لكن تومي الرجل ما تبغى صرامية بدي لا مقابلة أوشن يا في عمل الوحدة لبسه والغاسي ما حد قاعد شيء دنيا سوي شيء يعني أكثر واحد باكستان بدي أوش سووا دي بدي أرجع رتي على waxaan la doortay laba kun iyo todobadii saan ku sanahay 2000 laba sano baan intii dambe waxaan mudaa oo marba doorashooyinkii loo dhigay baa anaga waa la raaciyaa doorashooyinku baa kuwaas uma raacayno waa ka digina sida ma ahan ragde xisanaya waayo waxaa hawshani hawl culus weertii waxaan jeclahay inaan magarasahay aad iyo aad baan ufarsanay maanta inay soo gaaray xilligaan weejin lahayn oo aan kusoo dhaweyn lahayn weliba guddida cusub diyaarna u nahay inaan magarasahay la shaqeyno oo aan garab istaagno oo wixii allayo waxay naga qaadaan maxay agtay soo gaar baa leeyahay waxqabadkayga oran baa haysaa soo gaaraya waxay iga maqaabay gabadha halkan waxaa fadhiya hooyadii oo idinka doona waxqabadkii anaguna soo gaarin doona haddii aan ka dhigo wax badan baa noo qabsoomay runtii wax badan baa noo qabsoomay haddaan yaro taabto runtii waxaa noo qabsoomay noo wey jiraan oo ay ka dhawaajiyeen madaxda xisbigu oo fasabadeedii lagu adkaatay marka ay tahay kaararka membershipka xisbiga waxaan moodayaa in gaana heer ay ku korno taageerayaal waxa la yidhaahdo membership waxaan ahayn inaynan ku shaqaynin xisbi jira baynu nahay xisbi qaangaari baynu nahay inaynu horu marno weeyaan maanta dhaatadii labadii guddidii xitaa naga horeysa anaga isku dayay inay dhaato ururiso annaguna waa isku daynay kaarar baan soo sameeya wixii haddaan gudaha aanay ku lahayn base ku lahayn waana ka shaqaynay halkanna waxay moodaa inay ku yaro adkaanayso markaa waxay baahan tahay arrintaasi arrimaha la soo dhaweyaan guddoomiyaha markii waada insha allah xisbi ahaan guddigeed kala hadli doona haddii laaga sidii loo dhaqaajin lahaa hawsha nila dumaciyo haddaan soo qaato oo badan yihiin waxaa ka mid ah dhaqaalaha waxaa ka mid ah sidii aan usoo dhaweynay madaxda xisbiga waxaa ka mid ah shirarkii waaweynaa ayaan qabanay shirarka laamaha ayaa dhinac socday xubno iyo dadkii kale xisbiga kusoo biirayay xafladoodii adigu dee waa garanaysaa hawshii intay leekay gidigii intaan ka joogtaa waa arkaysa wixii howlaha dhacay keligeen baan wadin runtii haddaanay laamuhu jirin waxaa laga noqon karayn ma jirin laamaha 9 maalmood baa jiray hore intaanan qaban 13 maalmood gaarsiinay haddaan yaro hormaro maxay tay waxaa ugu horreeyey shirkii shaafiil ka dhici jiray codsiga rasmiga ahaa ee uu aan mister skerse ahaa markaa maxay tahay qaybta maaliyadda haystay skerse oo garanaysaan aanu uu lacag ururin iyo qaaraan aan maxay tahay arrinta uu soo bandhigay marka waxay guddi markiiba gashay lacag ururin aada fara badan xilliyada waa 2007 baan ka hadlaya shukr oo baan xasuustaa halkan igu qoran ayaan markiiba galnay oo aan u shibay halka guddidu waxay kaloo samaysay xaflad weyn oo lagu qabtay bariga london taasoo ahayd lacag
أيضا الجورية وحشت أمام عقل وكل ولو ترى جالس حفظ لها إلى حسيتها ويا ووقت ما سوي حسابه نيوزلاند ولا شيء وحلو شوي بس كسر وحال سيب حسي وكل كذب كده غالي ويا إذا عدي أدويدين هاوش وين كان حفله وقوتي هذا ما صدر حصلي بدوني بسات لها نفس اجتماع السير وقع اللي يعدوا لي أو شخص اللي مشاهدين بدون عرفت جدا حصل الأحفاد كان العاب ولا حصل المشاكل منها على ما شاء الله حسيت إنه سيرة حواريه هل كان يقول يصير ويرجع بعدين سلوكيمي كلا وحان دخله هنا بكهو بشيء وحكوا بشيء وصوب بكوي وحي عبد الرحمن قال معلم سجال كل قانوني وضرب قلت له واحد بديه اسكسات العقد يلقيه لا بكون وحاشتا لحد بلاد الدولة هذا كي وعدهم محاوية لبدي كل يضبطي إلى بكون يو سجاكي لبدي كل يتوكي ولحد بلاد الدولة وشيء رجالي كل 6 جون عبد الرحمن باي إنه دريا أو حوجيها يوم هي كتير هذا نيو باتوتين من العراق نوعي كاشير نوعي أنت أصلا marka waxaan uga jeedaa halkan maanta deewa teedka baa la qaadanaya falantiyaar ah oo tabaruc ah oo aan cidna waxba ku bixinayn waxaa laga yaabaa markuu qofku xaruneen laba bilood xaruneen qaar laga ogaay guddidii maalin doonu doortay qaar baana dugu horeba albaabka sida uga baxeen meelay joogaan hadda buloha baltaana inaad naga ilaalisaana xilka ninkii aan qaadi karin waa xil dhib badan adoo roobkaaga kaa baxay dhaqaalaaga kaa baxay reerkaaga misgeliyey wax walba seegay ayaa rubcaaya kumreen garaynayaa qaarkuloodeeda lacag lagu sida lacag ku qaato lagaga soo doonanaya waxay doonayaan waxay la gudbanaatay hawl culus baad qaadaysaan tacabka soo dhiseen iyo dumarkana dhaafuma howlkaas kulmiya dowla ugu dhisan yihin kulmeen dumarba halkaa soo gaarsiiyey tacabka isugu wada tago mudda diibkooda ayaa meel muhiima laga gaarsiiyey waxaa laga yaabaa haddaad usiirdooniseen iyo haddaad usiirdooniseen iyo dhiijiiba dowladda sanbaadaysaa oo inaad marba meel barnaamijtaad ka heshaan aad ka gashaan aad sanadkeeda yeelataan waxbaytaada ku badan maayo waxaan u mahadnaqayaa oo aan dhaafay dadkan warsada gareenaa meesha fadhiya gobollada fogfoga kala yimid waqtigooda lumeeyey waxay u socdaaloonahay wanaag iyo dadkooda iyo dalkooda iyo dowladdoodana taageeraan ka wataan iyo xisbigooda aad bay u mahadsantihin ilaahayna aad exercise waxaa kale oo aan halkan mahad uga celinayaa dadkii gaar ahaan guddidii weli jireeda soo shaqeeyey waan ku xusuusan doonaa waxay ahaan dad maanta dadka iska jecel leh sometimes oo xaraato buqlaalahay ayaan dhinac dhigaaqaad gurwaalahay waan kaga furan waa shaqooyinka la isku jeclaadaa marka si daaxada oo wanaagga loo qabto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هذه مع السيد عبد البعض إني كان واحد ملك ومصير لها عبد الرحمن محمد آدم وحوجيه قدي هوري UK إن شاء الله سلوا عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحن سويدينا الدورة هذه لا يصلح لك إنكم كان صدق السنوات لسويدي أفضل سنوات الدور. ولي وجه أقدم جدا كسر شيء oo dabadna leeyahay toban mid baa leeyahay waqtiga soo gaabay توصلي أسعار خلاص. ما أعرف عن دي بيننا سيدي هذا على هذا من خمسة مثلاً كنت دورنا إن الوضع سكوني زيادة بين هذا الوضع صحيح. ولما ما نقول وقت الصوت قال سوى شيء شوي بدي هذا البلد أهربي إنه تاريخ ولا شيء. تبدو على الكلام ده واقع
iyadii hadalka soo gaabi yarkadeeda malaa waqtigaa dee caynkaa iskale aad baan ugu mahadnaqayaa gudida qabanqaabada iyo marti sharafta shirka inala fadhida dhammaantood hawl qiimlay runtii soo qortay waa runtii halkan intu wada fadhnaay tahay waa ilaahay mahadii maanta inagoo xukunkii ku guulaysanay inaynu halkan isugu nimaadno oo shir qabsano oo guddi cusub xilkii lagu wareejiyo waa alxamdulillah runtii waa wax aad iyo runtii loogu fuxo weeyaan anagu haddaan guddidahay aad baan u soo weynay waxaan kaloo arrinta jeclaa inaynu kusno suldaan baa ka dhawaajiyey intii aynu halgankan kusoo jirnay dad badan oo halgankan inala soo galay baa aan maanta ila joogin ifka ila joogin inaynu xusno oo faatixada u akrino oo odayaal iyo dumar iyo waxgarad iyo cid walba lahaa iyadana runtii waxaan leeyahay faatixada loo وكوي هذا الكبرناء يا كم كل عكر رسول قال يمشي ليس كود بحسنا وكوي يكون كعشرين بقى يلا عوضنا قلت ذكرت هذا مسكين هذه فوحش السياسة ما اسمعها هو عادي عيبنا ما هبليه فرونت لانك هاي ذاك مرة العكر لير مثلا لير أتكلم ورجلي وبهاشة كنا مقعدين بحسنا وحياة ما كنت مسك على صوت عينك على السالفة ده وحكمت أنت صوص نص صوص ده سالفة كشاكين وعبر ما مسك على صوت عين لكن مهم بحوالي جودة هملا وقت وتشيد وقت يوكي هذين هاي وحن هملا الدور ده هاي إن هملا إن دون إنه قادنا وإن حسبك إثبات درك إثبات قسمه خاصة جوابت ما أنت بحوالي إثبات الوجود على هذين يوكي معنا إثبات في قيب لواحد فقالني marka waxa weeye had marka la soo koobo ila nasi marka la soo koobo guddi ujeedadii loo doortay iyo UK iyo kulmiye uga ma sha Allah wixii kale wuxuu noqonayaa si naxnax iyo qudardada ka sheekeyn iyo mataqaana ay sida ku dhaceen wata idan please xaga ay waan hoos iyo in soo yeesay hada kan daawanay waxaan runtii markaa madoona in UK ay qayb libaaxda ka qaadatay in isbeddelka waddanka ka dhacay waxa aan runtii waxa mataqaanaa la qarin karayna haddii UK ay markay dalka tagday anu raggii kale tagay baan ka mid iyo dumarku way tagay xaaladdu ma jacsanayn waynu si xaaladdu isu sheegayno waxaan xasuustaa ilaa halka bari ugu shaqeysa ilaa halka galbeed ugu shaqeysa xubin reer kulmiya oo UK ka joogtay oo every minute hakay waxaan xasuustaa Axmed Cilmi Barrow jooga sanad jooga waxaan xasuustaa aniga iyo Faarax Saga hogaamiye iyo Burcad jooga sidaan beenaan soo gelin بعد يعني ديت بيسو أنا بقول لك أنا عشان يسمى عشان لأنه كلمة يا عشان أتذكر كمية مقصود عشان يوم سوق هذا وراح أنت قدام بس أي لا نصوصي شكي شفيف كده قدام يعني لعكس أن UK هذين هاي ريس كريدي 70,000 دولار ورنتي عقل بالضبط هاو كده دكتور تجا يقول عنده فرشين هي تذكي تجي يقول بالعنده فرشين هي مثلا أنا مثلا كويس وحنا نمشون وين بروح تسلو أفضل
gudoomiyu tiro walba jeedku inoo yimi saddex joog waxaa inoo yimi waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha East London كيساعدك anigoo mucaarada maanta waxaan u faraxsanahay anigoo dowladda inay maanta halkan isku wada nimid oo ay kula joogo markaa runtii aad iyo aad baan islaamaya waqti baan ugu yar awoodii islaami macsalaamisa aad iyo aad u wanaagsan yahay iminkana waxaynu dib ugu soo celinaynaa gudoomiyihii Bristol oo ay soo fadhiyeen magaca carab xaflaya kaftankii uga jawaabay West London Ismail Abdujir yeah No London okay see that
علي وين UK aan aad uga shaqeyno anagoo isku dayi doonaan ciid ula samayno sifaaradda iyo ciiddii
matalaysa ee marka u joogta dowladda waddanka waxaan runtii iyadana aan ku darsan doonaa hawsha inaan wada shaqayn iyo xidhiidh gooniya qaar la samayno ururada iyo xisbiyadii hore jiray iyo ururada cusubba si loogu midoobo hawsha qaranka insha allahu karim ayna wada saaran ina hor taalana waxaan runtii aan aada u codsanayaa waxaan arkayay runtii odayaashii aan ku aqaanay kulmiya aada u firfircoonaa branchska managerada ka ahaa sida odayga arkay agtada fadhiyeen carab mas-uulkii kale ka kacay magaranaysa bristol xuseen qoladii east london waxaa hadadoodii ka dareemaya khudbadaha sheegayeen waxaanu doonaynaa in la bedelo waxaanu doonaynaa in magaranaysaa runtii aad bay hadalkaas maa soo dhaweynayna shaksiyan way waxaan u arkayaa in hawshii rag badan doonaya inay ka cararaan hawshana in lagu kala cararo maaha ama maamulkii hore aan kala wareegaynay ha noqoto ama maamulada gobolada ha noqoto waxaan aad iyo aad u codsanayaa in aynu hawsha wada kulmiyo waxa ku socota wada jir iyo qof walba halkaas ka qaadayna kaalinta muujino mar labaad waxaan runtii hadalkayga ku soo darayaa waxaan jeclaan lahaa inagoo fursada ka faa'iidaysanaya xaaladda soo socota ee ku saabsan shirweynaha loo qabanaya wadda soomaaliyeed ka dhacaya london kaasoo runtii dhabdan ay eegayaan dareenkiisa iyo ahmiyadiisana aada iyo aada inoogu leh aniga oo runtii arrintaa mulaaxadeyna waxaan leeyahay waxaa jaaliyadda joogta UK dhammaan mutacalimiinteeda xisbiyada ururada cusub ciddii matalaysa waxaan aada u codsanaya inaanu isaga nimaadno si aanu qadiyadda arrin mudaysan oo wada jir ah aanu mowqif isku mid aan uga wada qabanno waxaan runtii jecelahay mar labaad iyo mar saddexaad baynu u mahadnaqo dhammaan dadkii shirka soo qabanqaabiyey ee guddida ahaa waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaya guddoomiyihii hore ay iga horreeyey xilka wareejinaya iyo guddidii la shaqaynaysayba waxaan leeyahay runtii hawl weyn baa soo qabateen waana ku mahadsan tihiin insha allahu kariim waxaan idka codsanaynaa in halkii hawsha ay noo sii joogto hadalkayga intaasaan kusoo gabagabeynaya wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum السلام عليكم. أنتي بعد كده يا شركي رفضوا يوصي سعرية دور هو يدير بينه عصر لكن لو جابوا سكوا يجيبك وحسين يعني كده أحمد علاقة. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وصلى الله عليه يا رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبن الباين أي مشروع اسمه مجري وحاي شرف ماتا أنا وقتي دي حلقة يقول كذي يمكن وقتي هذا بدل يقصد كذي أصلا الشيء هذا لا تقول لي ساري شيء والله يا شباب كذا قصة غير في تاريخ أنا قلت له شيء كذي برضو وعيش شرف ماتا وأنا سوي وينيا كي يقول إن شاء الله تعالى فرحان بيا ونقول إذا سوق روتي حسب الموسيقى في عصر إما ده يسوي كذي هذا يسوي قطعي قاعد على هاي قبل ما قاعد يمشي ولا يسوي بعض شيء لا يمشي ولا يمشي أنا لو أتغير رسالة بعد ما بعد تاسون على هاي وتهبل دمتي بقى وحن شغال هاي إن يكون بشرايين إن يبقى